kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo meel walba aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka wacyigelinta gabdhaha oo toddobaad walba aad uga barateen inaad ka daawataan TV-ga Kalsan xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi. Barnaamijka waxaa maalgeliyay isla markaana fududeeyay isku soo dabariday waliba casharada inoo soo diyaariyay macallimiinta Tawakal Medical Clinic iyo waliba maamulka xarunta Tawakal Medical Clinic. barnaamijka waxaan aalaba ku soo qaadanaa casharada aan u soo gudbinayno gabdhaha Soomaaliyeed isla markaana faa'iido u leh haday ahaan lahaayeen dhanka caafimaadka, dhanka waxbarashada, dhanka tarbiyeynta caruurta, iyadoo markaasi laga kabayo gabdhaha Soomaaliyeed inay noqdaan gabdho isku filan isla markaana ka dhisan base-ka aqoonta haday ahaan lahayd dhan walbo. Toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa casharo ay ka mid yihiin cusbada iyo biyaha faa'iidada iyo waliba dhibaatada ay u leeyihiin aadanaha. waxaan sidoo kale ku soo qaadan doonaa isku dheelitirka cunnada bini'aadanka uu isticmaalo taasoo muhiim u ah qofka raashinka cunaya inuu isku dheelitiro cunnada uu markaasi isticmaalayo. waxaan sidoo kale ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena Soomaalida sida ay u taqaano la wajiilanimada ama qofka markuu ruux la joogana si kale ugu sheekeeyo kan kale markuu u tagana si kale ugu sheekeeyo. waxaan sidoo kale ku soo qaadan doonaa social phobia oo ah cabsida dadka ku jirta inay dadka soo hor istaagaan ay waliba ay hortooda ka hadlaan taasoo maanta ay nasiib aan u yeelanay in nagala qayb qaadato ama cashirkaasi ay u soo diyaariso Dr. Maymuna. daawadayaal casharadeena sidaas ay noogu socon doonaan intaasi ayaan toddobaadkan ku soo qaadan doonaa. waxaan mar kale aad ugu mahadcelinaynaa Tawakal Medical Clinic oo barnaamijkan fududeeyay isla markaana toddobaad walba gabdhaha Soomaaliyeed u sameeya barnaamij wacyigelin ah isla markaana u soo diyaariya casharo nafsiyan wax ku ool ah ama ay faa'iido ka heli karaan. waxaa toddobaadkan casharka uu yahay noogu horeyn doona cusbada iyo waliba biyaha faa'iidada ay bini'aadanka u leeyihiin iyo waliba dhibaatada dhanka dhibaatada hadii la dhaho bini'aadanka waxyaabaha ay u geysan karaan iyo waliba nooca bini'aadanka faa'iidada u leh iyo waliba nooca dhibaatada u geysan karta. waxaa casharkaas halkan nooga soo jeedin doonta mid kamid ah macallimiinta Tawakal Medical Clinic macallimad Saara Saadiq Yuusuf. mawduucina maanta wuxuu ku saabsan yahay biyaha iyo cusbada iyo macdanta laga helo cusbada. waxaa jiro waxyaabo curiyaal oo qofka bini'aadanka jirkiisa laga helo oo asaas u ah oo laga helo cusbada uu qaato ama biyaha uu cabo qofka bini'aadanka ah. maanta waxaan ka hadli doonaa faa'iidada dhibka ay qofka bini'aadanka u geysan karaan hadii biyaha si qaldan loo isticmaalo iyo khasaaraha ay u geysan karaan intaba. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa cusbada. jirka cusbada ma u baahan yahay? cusbada maxay keentaa? maxay se difaaci kartaa? waxa kaliya qofka bini'aadanka uu inta uu isticmaalo uu jirkiisa ka heli karo waa biyaha way kamid tahay. waa shay inta cabtid ayaa jirkaaga ka heli kartaa. hadaa maalinka 2 galaas biyo cabtid waxaad ku xisaabtamaysaa inaad jirkaaga 2 galaas oo biyo kaliya uu ku shaqeynayo. xubnaha qofka bini'aadanka meel walba oo jirkiisa kamida 75% markii laga bilaabo qaybta qoorta ilaa inta ka hooseyso qofka jirkiisa waa biyo laga sameeyay. dhanka maskaxda madax markaan ka hadalno 85% waxay ka samaysan tahay biyo taasoo cadeynaysa in korkaaga intiisa badan uu ka samaysan yahay biyo. qofka bini'aadanka waxaa laga rabaa maalin kasta inuu qaato 2 litir oo biyo ah iyadoo qofkaaseeto lagu xisaabtamayo culeyskiisa. culeyska qofka uu qabo ama miisaankaaga intuu yahay ayaa biyaha cabaysid ee la barbar dhignaa. qof kastoo meeshan joogan uu ogyahay waana dhahnaa waana la baraa in qof walba qofku ka biyo cab badan yahay uu ka caafimaad badan yahay laakiin wali biyo sida loo rabo ma loo isticmaalo. shaqo walba jirkaaga ka dhacdo hadii ahaan leed maskaxda shaqeynayso wadnahaaga shaqeynayo waxay u baahan tahay biyo ku shaqeeyo. haddaysan biyo jirin waa xubin dhimatay oo qalalan markaas ma shaqeynayso jirkaaga. dadka qaar waa aragteen waxay qabaan wadna garaac zaa'ida oo ama daal zaa'id ay qabaan. calaamadaha qofka inuu biyo la'aan korkiisa lagu garto waxaa kamid ah oon ma qabto. qofku oonka qabanayo waa qof afkiisa qoyaan mar walba u bartay iyo biyo u bartay markaas aytana biyo markuu oon qabto oo raadsanayo. laakiin adiga hadaa taa qof muusan oon qabanaynin meel qaban waa jooga oo mi qabanayo micnaheedu maahan yani biyo korkiisa kuma jiraan ma haduusan oon ku qabanin meel kasta joogtid hadaadan biyo qaadanin micnaheedu taas wax waa calaamad cadeynayso inuu korkaaga biyo la'aan yahay. dadka qaar markii la dhaho biyaha caba waxay ku dacaydoodan ama ay dhahaan mar walba musqushan galaya ama waan ku buuranaya. dadka qaar waxaa jira biyaha caadiga aaminsan inay ku buuranayaan laakiin waxaan rabaa inaan idin cadeeyo biyaha maxay ka kooban yihiin sidoo loogu buurtaa. biyaha iyo cusbada waa wax wada socdo. qofka bini'aadanka markay jirkooda wada galaan buurna meesh ma soo wada galayso.
waxaa laga yaabaa qofka inuusan biyo caabi jirin weligiis uu biyo bilaabo markaas inuu caabo markuu bilaabo xubnaha jirkiisa ku jiro markaas way ugu horeysaa way dhinteen markii horeeto oo yacni active man shaqadooda si fiican ma u howlgalaynin kadib qofkii markuu biyo cabo waxaa dhacayso in xubnihii aysan si fiican u galin biyaha waxyaabaha kaliya biyaha jirka geyn kara waxaa kamid ah cusbada qofka bini'aadanka ma qaato waxaa la isticmaalaa cusbo man made oo qof bini'aadan uu sameeyay iyadoo la helayo cusbo dabiici ah cusbada dabiiciga waxaa laga helaa badda waad ogtiin intiina badan waa aragteen wadanka hadda isticmaalo cusbada markaad cuntada dhadhankeedu kaa bedelmayaa waxyaabo badan hadaa wax yar wadid waxaa u malaysaa meesha ay kaa taabato inay ku go-ayso sababtoo cusbada oo naturalka ama dabiiciga waxay ka samaysan tahay 92 curiye ee ka kooban tahay macdan isku jirta ah laakiin qofka bini'aadanka cusbadu gacantiisa ku sameeyay waxay ka kooban tahay 2 macdan meeqa ka maqan 9 macdan ka maqan taas maxay ku keenaysaa ina kugu dhacdo jiro ku keento waxaan ahayn kuma keenaysa faa'iido kuma keenayso waxaa jira baadil la dhaho sodium oo cusbada ku jirto iyo chloride labadaas ay cusbada dadka oo gacanta ku sameeyay u adeegsadaan ama warshadaha taasoo keenayso in maado potassium iyo kuwa kale to badan ay ka maqan yihiin qofka markii cusbada jirkiisa gasho wuxuu u baahanaa biyo markaad u baahatid cusbadaas oo korkaaga gasho waxaa laga rabaa inay geyso biyahaaseeto xubin kastoo jirkaaga ku yaalo laakiin cusbadii jirkaaga gasho hadday sun tahay taas waxay keenaysaa biyi cabtay inaysan jirka gelin isla markii kaada heeslu hore ka gasho kaada badanna bilowdid laakiin qofka biyo cabka intuu bilaabayo maahan inta dambe hadduu biyaha qofka si fiican usii wada lama rabo inay kaadadiisa ka badato 5 jeer ilaa 6 jeer maalinkii haddii intaas ka badan tahay micnaheedu waxa waa korkaaga biyihii ma gelin isla markii kaada heesta ayaa lagu shubay horaan laga baxshay sababtoo ah macdantish oo biyahaas u geyn lahayd ayaa ka maqan jirkaaga sidoo kale waad aragteen qofka bini'aadanka markuu ooyo waxay ka samaysan tahay biyo dhanaan ilinta dhididka wuxuu ka samaysan yahay biyo dhanaan candhuufta way ka samaysan tahay sidoo kale dhiigaaga dhiig ma la dhadhamin ogahay laakiin sidoo kale wuu dhanaan yahay wuxuu ka kooban yahay biyo iyo waxyaabo kale iyo cusbadaas dhanaan sidoo kale ilmaha markay uurka ku jiraan waa aragteen biyo ayay dhex sabeeyaan ilmaha uurka markay ku jiraan biyahaas ay dhex sabeeyaan waxaa la dhahaa sii wara waa biyaha badda camal waxba isma dhaamaan waa biyihii badda camal oo lagu korsho meesha qofka hadduusan biyo cabin maxaa ku dhici karo dhibaatooyin ku dhici karo waxaa kamid qofka inaysan dheefshiidkiisa cuntada calooshiisa jiidin caloosha waxay u baahan tahay qoyaan ee ku burburiso waxaanato qoyaanka hadduu ku yar yahay wax ma shiidi karto adiga waxaa laga yaabaa inaad bilowdid calool xanuun ma saxaroonay dhib badan inaad sheegatid sidoo kale qofka waxay u keentaa laabjeex dad badan waa aragteen ka sheeganayo baga xanuunayo ama gastrigan qaba taas maxay keenaysaa inuu qofkii meesha hadee wixii loogu talagalay qofka bini'aadanka hadaysan gaarin dhiba imaanaya meesha ku xisaabta marwalba laakiin adiga biyo kugu filan ma cabin jirkaaga wuxuu soo deynayaa dheecaano oo burburiyo cuntada waxa caawin karo cuntadaada hadaysan biyo raacsanay ama biyo uusan jirkaaga ku jirin cuntada kaligood markii la shiido hadhoodii dheecaanka wuxuu ku dhacayaa calooshaadii oo bannaan hadhoodii gaas iyo waxa kugu dhacaa iyo wadna iyo maxaa la dhahaa laabjeex iyo waxyaabo badana ka sheeganaysaa dad badan waxay ka sheegtaan lafa xanuunka waa calaamad kale oo sheegayso in qofka biyaha jirkiisa ku yar yihiin macdanaha kale jirkaaga hadii laga helo hadii biyo ku jirin lafahaaga 25% wixii ka kooban yihiin biyo laga sameeyay hadaa biyo weyse kala goysa ku xanuuna lafaha ku xanuuna meel kasta ku xanuunays sababtoo jirkaaga wax kala ka maqan sidoo kale biyaha waxay naga caawiyaan inay difaacaan wadna xanuunka dad badan waa aragteen wadnaha ay jiid maayo dhib badan aan qabaa waxaas ka sheeganayo laakiin jirka dhiigga bini'aadanka wuxuu u baahan yahay biyaha qofka markuu cabo dhiiggiisa lagu daraa dhiiggiisa uu badanaa markuu bato wadnaha garaaciisa caadi noqonayaan hadhowdu kuma yar laakiin wadnihii garaac wadaa qoyaanka dhiigin wuu yiri taas maxay keenaysaa wadna xanuun inuu wadnaha ku jiidmo oo adigana aad rafaadid sidoo kale biyaha waxay naga caawiyaan migraine headache dad madax xanuun zaid dad qaba hadaa aragteen waa calaamad cadeynaysa in maskaxda biyo aysan gaarin dadka migraine headache iska qabo madaxood mar walba madax ma dago mar walba maanta oo dhan 24/7 wuxuu ku leeyahay madax ay xanuunay dadka qaar waxa u malaysaa in madax wax looga garaacay aad waa madax xanuunkooda zaid waay waxa keenayso maskaxda biyo laga rabo ma gaarin sida ay sheegan maskaxda waxa laga sameeyay 85% biyo hadii se heli maxay sameeyeen waa loo fiila istaabanayso ku xanuunaysa madaxi wixii u baahanahay waa calaamad ku tusinaysa in u baahan tahay biyo
sidoo kale biyaha waxay naga caawiyaan caloosh dadka fadhiisato saxaroonin dad badan waxa jiro oo qabsan qabo ama wax sameeyo hadduu qofka biyo badan cabaayo maxay sahlaysaa in cuntadii jirkiisa dhaqsi laga saaro wixii laakiin haddaad cadin biyo badan aad cabin maxay keenaysaa inay wixii meesha kugu fadhiistaan waa aragteen wax hadduu meel yaal haddaadan la raacsiinin ma dhaqaaqayaan laakiin adiga jirkaaga waa sidoo kale wuxuu u baahan yahay shaqadii oo dhan waxaasoo dhan wuu ka kooban yihiin jirkaaga sidoo kale biyihii u rabaa biyaha cab haddii kale caloosha ku fadhiisanaysa mar walba waxaa dhehaysaa ma saxarado dad waxaa arkay ku dhahaya bisha hal maraa saxaroodaa jiro ka weyn ma jirto saxaro la-aanta sababtoo wasaqda intaas aa cunayso o dhan jirkaaga ku jirtaa kama bixin sidoo kale waxaa lagu daaweeyaa biyaha asmada dadka cudurka asmada la dhaho qabo asmada waxaa keeno xasaasiyad waaye sida ogtiin intiida badan qofka uu qabo neef ah neeftaaseet waxaa keenayso markuu xab uu fadhiisto xabkaaseet wuu qalalan yahay dadka badanaa meelaha barafka ama wax ka dao waxaa la dhahaa markuu jirkaaga xab uu leeyahay xabkaaseet uu adkaanaya haddaysan biyo helin laakiin haddii biyo helaan ay cabaan waxaa sahlanaanayso inaysan xasaasiyad meesha ka dhalanin oo xabkii meesha ka baxo uu jilco uusan markaaseet wax neefti kugu dhegaysa aysan noqonin sidoo kale biyaha waxaa lagu yareeyaa ama daawo ay u tahay lagu yareeyaa aan dhihine daawo ay u tahay dhiig karka dadka qabo markuu dhiigooda aad u kacsiiya biyo badanaa la siiyaa si dhiigooda loogu dajiyo biyaha sidoo kale waxay caawiyaan sokorta maxaa keenaysa qofka biniaadanka in glucose jirkiisa uu dhex sabeeyo dhiigaaga waxaa sabeynayo sokoraa dhex sabeynayso biyo badan markaa cabtid maxay ka caawinaysaa in sokorti wixii wasaq ahay wax kastoo dheeraad jirkaaga u baahana in laga saaro laakiin biyo haddaad cabin shay kastoo dheeraad jirkaaga ku ah cudur magac lahu kugu noqonaa oo gooni ah sidoo kale biyaha waxay naga caawiyaan cholesterolka dadka subaga cholesterolka waxaa keenaya waxay tahay weli subagii oo jirkaaga ka batay biyo haddaad cabtid qofka uu biyo markuu cabo dadka way dhidid badan yihiin dadka oo biyaha badanaa cabo waa la bixinaa wax walba qashin saara ay ka imaanaya jirkii waa la nadiifinaya laakiin wax kasteeto aad biyo cabin cudur kastoo magac leh uu ku imaanaya meeshuu kaaga sahlan yahay sidoo kale biyaha waxaa loo isticmaalaa culayska in lagu dhimo sida haddaa idiin soo sheegay biyaha hadday cusbada hadday wataan waa la geen karaa xubin kastoo jirkaaga wayna tegi karaan waa u sahlan tahay laakiin cusba haddaysan wadanin waxaa dhacayso inuu jirkii uusan geli karin biyi markay jirka geli karin waxaa dhacayso in qofkii uu ama uu hore ka shiido kaadi bataado uu meesha ka baxo laakiin biyo laguma cayilo haddaysan cabitaan ahayn sokor lahayn biyaha caadiga pureka waxaa loo isticmaalaa weight losska culayska lagu dhimaa dadka badanaa jiran isbitaalada joogo kaniiniya la siiyaa waxaa laga yaabaa qofku dhahayo meel kasta ay xanuunayso ma garanayo ani waxaan qabo dhib badana ay haysto mana sheegi karo meeshaas ay xanuunayso ma ku dhihi karo qofki taas waxay keenaysaa inuu qofki biyo jirkiisa u baahan yahay waxaa laga yaabaa inuu cudur magac leh kugu dhaco ama inuu jirka dhan ku wada xanuuno jirka dhan markuu ku wada xanuuno waa calaamad ah korkaaga inuu qalalan yahay markuu korkaaga qalalan yahay qofka hadduu biyo cabo haddaa kaniini ku daaweyska waran antibiotic wax kala qabo waa isii qalajis adoo qalalnaa isii qalajis wax faa'iido ma keenayso dadka marka waxay isku qaldaan inuu qofka dhaho waa oomanahay ma dhihi karo wuxuu dhahaa waa jiranahay korka dhan ay xanuuna laakiin hadduu dhaho waa oomanahay micneed wax waa biyo soo qaadaa lee wuuna fiicnaana marka labadaas waxay noqotay labo adduunka la isku qaldo dhaqaatiirta dhan ay ku wareeraan oo qof kasteeto korkiisa qalalan uu dhaho korka dhan ay xanuunaa qofka biniaadanka waxaa la dhahaa lagama dhaadhicin karo waxa samee ilaa uu ogaado haddaad fiirsatid qaab dhismeedka jirkaaga qaabku u yaalo siduu u shaqeeyo qayb kastoo jirkaaga ka mida waxay u baahan tahay haddaad og tahay biyo waa la cabi lahay soo maa laakiin anagoo og maxaa keenaya daciifnimada inaanan biyihii la cabin oo qof kastoo jirkaaga haddii lagu dhaha intaasoo boqolkiiba biyo ka samaysan tahay markaas magaalada biyihi waa laga dhameyn lahaa waa la daldali lahaa biyi laakiin biyihii weli istii lama cabo sababtoo ah wax fikrada kama haysatiin jirkaaga siduu u shaqeeyo wuxuu u baahan yahay iyo wuxuusa u baahnayn qofka biniaadanka hadduu 2 galaas uu cabo intuu subaxdii markaa soo kacay 2 galaas oo biyo cabto waxay ka caawinayaan in jirkaaga waxaa jiro organs waxa la dhahayaa jiro oo jirkaaga uu qabo inay si fiican u shaqo galaan ka caawinaysaa subaxdii adoo afka wax saarin 2 galaas oo biyo ku bilaaw 1 galaas waxa cabaysaa inta la qabaysan ka hor haddaad qabaysan biyo hatta qabo hadda ku qabaysanis biyo isma dareemaysid sababtoo ah waa aragteen dadka qaar markay qabaysanayaan biyo qabo uu naxaa jirkooda laakiin qof jirkaaga ma naxay hadda galaas biyo ka hormarisid qabayska sidoo kale galaas waxa ka hormarinaysaa intaada seexan kaas waxay ka difaacay stroga dhiig karka keeno sama
iyo madax xanuunka inta way difaacaysaa iyo wadna xanuunka galaas intaad seexan cab sidoo kale waxa kaloo sameynaysaa cuntada intaada cunin ka hor nus saac ka hor waa inay cabtaa hal galaas taas waxay caawinaysaa dheefshiidka cuntada sidii loo shiidi lahaa 3 galaas ilaa 5 galaas inta u dhaxaysana waxa cabaysaa maalinkii waqti cunto ka cunto inta u dhaxaysaa cabaysaa maalinkii oo dhan intaas waa inay extra wax ziyaada kugu ahaataa maxay ka caawinay jirkaaga in qashin saar lagu sameeyo qashin saar daa jirkaaga inay sameeysid cuntooyinka inta u dhaxayso marka cuntada aad cunti kadib biyo 3 galaas ilaa 5 galaas u dhaxayso cab kadib wasaqda ee cuntada sareebta jirkaaga waa laga saarayaa cashirkii intaas ku saabsan yahay laakiin marka hore waxa rabaa inaan idin sheego cusbada wadankan ada Kenya ay joogno Nairobi waa aragteen cusbo baceysan oo baca waxa laga sameeyay laba curiye bas taasoo keenaysa sun ah cusbada oo meelaha lagu gato hada aragtiin Soomaaliya dadkii cuntada cuni jiray inta markay imaadaan waxay dareemaan in dhadhanka cuntooyinka isbeddelay sababtoo cusbada Soomaaliya ka isticmaal jirna baday ahayd midda inta ahna waxa waa la soo farsameeyay meesha laga rabay cusbada inay ka koobnaato 92 curi hadii 2 curi kaliya laga soo sameeyay ka waran soo dhibkay ku geysanaysaa ka badan dhiig kara imaanaya wax kasta imaanaya meesha sababtoo ah jirkaaga cusbada la reebo ma qaadanayo midda kale cusbo la'aantana way keentaa dhiig kar kama keento cusbada kaliya cusbo jirkaaga haduu lahayn dhiig kar way keenay hadii ka badata oo ama cusbada sunta ah isticmaashada way keenay labadaba sidoo kale cusbooyinka niliigu talagalna isticmaashin waa aragteen dhul waxa jiro cusbo ah Soomaaliya cusbooyinka isticmaal laakiin hadda waxa laga yaabaa in Nairobi laga qaado cusbo Muqdisho la geeyo waa tii sunta aheeda nolo qaada teeni kale ma ogin anaga faa'iido ku jirto cusbada oo Soomaaliya laga helo tan u badan tahay tan waxa la dhahaa cusbadan Himalaya buuraha laga helaa waa cusbo oo dabiici ah waa tan mid 92 curi ka kooban laakiin tan kale oo bini'aadanka sameeyay waxay ka kooban tahay sodiumkaas iyo chloride-kaas ka kooban tahay waa laba shay kaliya hatta qofka haduu cuntada ka badsado dhadhan yeelanayso waxa arkay qof maanta dhan ku wado uu ku daldala hal mar ma dhadhamayso tan waxa laga yaabaa wax yar hadaa ku dirtid kaliya ka kaafiso marka cusbadan raadsada hadii aad Soomaaliya ma joogna hadaad helin tan supermarket-ka waa laga helaa cusbada Himalaya la waa heli kartiin raadsada Soomaaliya naftirkeeda cusbadan waa laga helaa tan dibadaha loo keenay inta la iska dhaaftan hal caawtan wadankeena qabaay badda waa ka heli kartaa badda cusba laga keenay biyaha badda inta la fadhisiyo cusbay noqdaan marka dambe waxa soo dhan waa cusbo meesha ku taalo adiga lagu talgalna isticmaash laakiin Ilaahay haduu ku tusi waay oo bini'aadankii wuxuu sameeyay ka daba ordos Ilaahay wuxuu sameeyay diidays ka war cudur adaa bireysana lagu ha ku reysana markaaseeto dhulkan waa laga qodaa buuray qabtaa cusbada oo Soomaaliya laga qoday qabtaa buuro dhan leeyahay dhul dhan cusba jiro laakiin Ilaahay ma bana tusin ba anaga waxaan ku ordeynaa bini'aadan wuxuu sameeyay cudur dhanna meeshaas uu ka imaanaya ama santiin 10 inta isku eegay waa tahay daawadayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wacyigelinta gabdhaha oo idinkaga imaanaya TV-ga Kalsan xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi aad ayaan ugu mahadcelinaynaa macallimad Saara Saadaq Yuusuf oo kamid ahayd macallimiinta Tawakkal Medical Clinic isla markaana halkan inooga soo jeedisay 10 ku saabsan cusbada iyo waliba biyaha dhibaatooyinka iyo waliba faa'iidada ay u leeyihiin aadanaha wili waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeeni waxaan sii guda galeynaa casharada inoo xiga waxaan halkan uga yeeri lahaa macallimad Aamina Cabdinaasir Axmed oo halkan inooga soo jeedin doonta cashar ku saabsan isku dheelitirka cunnada casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sidii aan u joogteyn lahayn isku dheelitirka cuntada aan qaadano maalin kasta cuntada qaadanaysa laakiin qayb kamid ah sida carbohydrate-ka kale hada isku badisid dhibaatooyin badan buu jirkaaga la kulmaya oo waa iska buuranaysa waxna faa'iido iyo caafimaad ma helisid hadii aad sidoo kale protein badan qaadatid oo aad isku dheelitirinin oo carbohydrate-ka ka maqan yahay dhibkaas oo kale aad la kulmaysaa marka hadii isku dheelitirnaanta cuntada hadii aan soo qaadano waxa la kulmaysaa caafimaad badan iyo jirkaaga oo u shaqeeya sidii aad rabtay cudurrada kugu dhici lahaa oo dhaqso ku soo gaari lahaana aysan dhaqso kugu soo dhicinin aad iska difaacdid jirkaagu iska difaaco halkan waxa ku haynaa qodobo dhowr ah oo isticmaali karno in cuntadeena isku dheelitirno ama si aan ula kulanno cunto isku dheelitiran waa inaan qaadanaa fruits badan iyo qudaarta cagaaran si aan cuntadeena isugu dheelitirno fruitska iyo qudaarta cagaaran aad ayay muhiim ugu yihiin caafimaadkeena waxyaabo badan oo faa'iido inoo leh ayaana ku jira maxay u yihiin marka fruitskaas iyo qudaarta cagaaran muhiim waxa la kulmaysaa
fitamiino badan iyo minerals badan kuwaas oo aad kala kulmeynin cuntooyinka kale haddii aad qaadatid sida bariis iyo baasto badan haddaad cuntid aad kala kulmeynin sida haddaad qaadatid ukun badan aad kala kulmeynin marka fruits badan iyo qudaarta cagaaran waxay ka caawinayaan minerals badan iyo inaad la kulantid cuntada ay qaadanaysa aad la kulantid maxaan ku dhahaa iyo fitamiino badan oo muhiim ah intee ayaad u baahan tahay inaad qaadatid oo maalin walba maalin kasta waxaa laga rabaa inaad cuntid ay ku jirto cuntadaada hal biis ama wax yar oo fruits ah ama wax yar oo ka mid ah qudaarta cagaaran laakiin haddii aad bariis intaad karsatid aad iska cuntid sidiisa asagoo ah waxba lama kulmaysid oo ah inaad qudaar aad minerals iyo vitamins badan lama kulmaysid waxay ku difaacayaan inaad jirkaaga inuu iska difaaco cudurrada inaysan kugu dhicinin nafaqa darro oo aadan noqonin qof liita cuntooyinkee ayaan ka heli karnaa inaan nafaqooyinkaas la kulano iyo mineralskaas iyo fitaminadaas badan waa inaad qaadataa qudaarta cagaaran sida spinachka salarka carrots maxaan ku dhahaa sidoo kale fruits markaa leenahay fruits waa wada garanaynaa waa inaan qaadanaa cuntooyinka ay ku jiraan waa inaan qaadataa maalintii cambe moos waa inaan qaadataa sidoo kale tufaax waa inaan qaadataa sidoo kale strawberry inaa cuntid habka labaad waa inaa cuntaa protein badan si aad ula kulantid cunto isku dheelitiran maalintii waxaa qaadanaysid waa inay ku jirtaa protein haddii aadan qaadanin proteinkaas cuntadaadu marna iskuma dheelitirna maxay sababta ay u tahay proteinka muhiim inaad maalin kasta la kulantid iyo shaqada ay noo qabato waxa weeye jirkeena oo koritaankiisa ay ka caawiso iyo unugyadeena sida ay u shaqeynayaan isbebedelkooda oo dhaqso noqda neerfayaashaada oo dhaqso si fiican u shaqeeya haddii aadan qaadanin maadadan proteinka ma la kulmays ma ahaanaysid qof firfircoon oo neerfihiisa ama madaxiisu si fiican u shaqeeyo sidoo kale waxaa ahaanaysaa qof maskaliskiisa iyo meel kastoo jirkiisa ka mid ah caajis uu ku jiro dhib badan dareemaya aan waxba qabsan karin aan samaysan karinin so that waa inaa qaadataa in protein waa inaa maalintii ka qaadataa cuntadaada dadka intee baa u baahan tahay inaa qaadatid dadka way kala duwan yihiin waxaa leenahay dad teenager ah waxaa leenahay caruur waxaa leenahay dad waaweyn oo rag iyo dumar kale ah dumarka waxaa laga rabaa inay 45 gram qaataan maalintii oo protein ah raggana waxaa laga rabaa in ka badan intaas waa dadka waaweyn baa ka hadlaynaa waxaa laga rabaa 55.5 inay qaataan maalintii oo protein ah caruurta yaryar sidoo kale in badan ayay u baahan yihiin koritaankooda intaa in ka badan ayaa looga baahan yahay maalintii inay qaataan so that waa inuu qofku qaataa qofka weyn waa inuu qaataa 100 gram oo hilib ah hilibkana wuu kala duwan yahay laba hilib ayaa jira hilib waxa waaye hilibka guduudan oo hilibka caadiga ah oo xoolaheena aan isticmaalno waaye hilibna waxa waaye hilibka digaaga iyo leh kalluunka oo labadoodu way kala faa'iido badan yihiin haddii aad rabtid protein fiican oo caafimaad leh inaad la kulantid waa inaad qaadataa hilibka cad kaas oo ah kalluunka digaaga iyo kalluunka haddii aad isku badisid hilibka caadiga oo guduudan oo anaga badanaa Soomaali ahaan aan isticmaalno waxa la kulmaysaa inaa cayishid inaa cudurro badan ay kugu dhacaan sida bruxelka cudurka la dhaho oo waxa fariisanaysa xayir badan jirkaaga dhib badan ayaad la kulmaysaa sidoo kale waxa laga rabaa maalintii ugu yaraan inaa qaadatid 2 xabo ukun ah qofku 24 saac waa inuu cunaa 2 xabo ukun ah maalintii sidoo kale waxaa laga rabaa inaa qaadatid digirta beanska noocyo badan ayay leedahay midda cagaaran midda guduudan anaga aad aan u isticmaalnaa midda guduudan halkana waa laga helaa noocyo badan ayadoo leh soo isku waxa ka helaysaa protein isku filan waa inaa qaadataa maalintaas sidoo kale waxaa laga rabaa at least wax yar inaa cuntid oo ah nuts haya cuntooyinkee laga rabaa inaa qaadatid si aa uga hortagtid waa sheegnay inaa ii sheeg inuu faa'iido ku leeyahay sidoo kale inaa protein qaadatid wuxuu ka difaacayaa cudurrada wadnaha ku dhaca sidoo kale waxay ka difaacaysaa cancers badan oo kugu dhici lahaa haddii aad hilibka cadna qaadatid ukuna aad isticmaashid qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa inaad dairy qaadatid dairy waxaa la dhahaa cuntooyinka dareeraha oo dufanka leh cuntooyinkaas oo ay ka mid yihiin caanaha uu ka mid yahay cheeseka subaga la dhaho yogurtka
sidaa darteed ayagana waxay faa'iido u leeyihiin waxa faa'iidada ku jirta waxay tahay calcium badan aad la kulmaysaa oo cuntooyinka kale aad ka helaynin marka waxay khasab kugu noqonaysaa in aad qaadatid maalintii qayb ka mid ah intaas aad cuntid waayo ay faa'iido u leeyihiin calciumka wuxuu faa'iido u yahay murqaheena wuxuu faa'iido u yahay ilkaheena iyo lafaheena oo adkaanaya oo caadi noqonaya oo ayagoonan u shaqaynaya sidii aan ka rabnay inay u shaqeeyaan marka si aad ula kulantid waa inaad qaadataa waa inaad qaadataa yogurt caano iyo sidoo kale waxaa ka qaadanaysaa maalintii waxaa laga rabaa inaad la kulantid oo qaadatid 200 oo milimitir oo caano ah 250 soya milk ah oo sida taas oo ka helaysid calcium badan sidoo kale waxaa laga rabaa 30 gram oo cheese inaad qaadatid sidoo kale waxaa laga rabaa hal kartoon oo inaad cabtid yogurt ah ciyaalka iyo maxaan ku dhahaa teenagerska aad ay ugu baahan yihiin maadadan inay qaataan sababtoo ah lafahooda oo wali soo koraya oo adkaanin bay ugu baahan yihiin in ka badan dadka waaweyn cheese badan inaad qaadatid laga rabaa caano badan yogurt badan si aad ula kulantid inaad calciumka badan sidoo kale waxaa laga rabaa inaad la kulantid qoraxda inaad aragtid maalintii at least 1 saac 2 saac inaad qoraxda joogtid imaatid qodobka afraad wuxuu noqonayaa carbohydrates qaado badan si aad ula kulantid cuntadaada inay isku dheelitirnaato oo cunto caafimaad leh isku dheelitiran ay noqoto carbohydrateska maxay naga caawiyaan energy badan inay siiyaan inaad qof awood leh aad noqotid oo shaqaysan kara wax qabsan kara banaanka u bixi kara just ka kici kara sariirta so that waxay muhiim u yihiin carbohydrateska waxay ku siinayaan inaad ahaatid qof awood leh waqti badan shaqaysan kara inaad ahaatid sidoo kale carbohydrateska laga rabo waxa waa inaad cuntid cuntada buunshaha leh lagama rabo inaad qaadatid bariiska iyo cad iyo burka cad inaad cuntid maxaa laga rabaa inaad qaadatid cuntada whole grainska wixii aday buunsho leh oo maxaan ku dhahaa jirkaaga wax soo gelinaya laakiin burka cad iyo bariiska caadiga ah brown rice ma aha kan kale muxuu kugu saaidinaa inaad cayishid oo qof buuran ahaatid mar walba vitamins badan la kulmaysaa haddii aad qaadatid cuntada buunshaha leh sida masagada iyo qamadiga oo kale koos waxay kasoo baxaan dhulka ayaga maalintii waxaa laga rabaa inaad qaadatid carbohydrateskaas inaad cuntid brown breadka rootiga guduudan waxaa laga rabaa inaad qaadatid baastada ayada inkastoo lasoo mariyay laakiin way dhaantaa kuwa kale waa la kulmaysaa faa'iidada u baahan tahay maxaa laga rabaa inaad cuntid oatiska potatoska inaad qaadatid sidoo kale waxaa laga rabaa inaad qaadatid boorashka ku jira daasadaha ama kuwa kartoonka ku jira inaad ku darsatid cuntadaada si aad ula kulantid cunto isku dheelitiran oo caafimaad leh qodobka shanaad wuxuu noqonayaa inaad iska ilaalisid sokorta badan cusbada badan iyo xayrta badan kuwaas oo jirka bini'aadanka u keenaya inay cholesterol badan u fadhiisto xayrtaada ay fadhiisato wadna garaac badan kuu keenaya sidoo kale sokorta sidaa ognahay dhibaatooyin badan ayay leedahay sokortuna way kala duwan tahay sokor waxaa jirta natural ah iyo sokor caadi ah sokor lasoo filter gareeyo oo caadiga ah sokorta naturalka maxaa kala kulmi kartaa inaad fruits badan qaadatid inaad sidoo kale qaadatid qasabka waa naqaanaa soo qasabka caadiga oo la xoqo kaas inaad at least maalintii hal uul ka cuntid ama wax la mid ah si aad ula kulantid nafaqooyin badan laakiin haddii aad qaadatid sokor badan cuntadii waxba kuguma kordhinayso oo jirkaaga mana kuu korayo jirkii wax kalena kuma faa'iideynayso haddaad sidoo kale qaadatid cusbada badan sidoo kale laakiin waxaa u baahan tahay wax yar oo faatisa inaad ka qaadatid sidaa darteed waxay muhiim ugu yihiin faatiska inaad qaadatid waxaa jiraan fitamiino ku milma faatiska haddii aadan qaadan faatis fitamiinada jirkaaga ay fadhinayaan sida vitamin A-ga vitamin D iyo vitamin K vitamin E-ga cause ayaga waxaa la dhahaa fat soluble la dhahaa biyaha iyo cuntada kale oo aad qaadatid ma kuugu milmayaan waa inaa ayaga la kulantaa waxay ku keeni karaan cusbo badan aad qaadatay iyo subag badan wadna garaac badan sidoo kale marmarka qaarkood dadka waxay ku sababaan inuu ku dhaco blood pressure sidoo kale maxaa wadnaha dhiigaaga si fiican uma bamgareynayo fayniski laga rabay inay dhiigga qaadaan ma qaadayaan maxaa ka hor imaanaysa carqalad sidaa darteed waa inaa cuntooyinka badda kasoo baxaan cusbada lagama rabo inaad qaadatid casharkeena horena cusbadu ku saabsanaa cusbada maxaan ku dhahaa warshada lasoo mariyey laakiin waa inaa qaadataa cuntooyinka badda laga soo saaro sida kalluumada oo kale kalluunka maxaa la kulmi kartaa sidoo kale maxaa la kulmin
waxaa ka helaysaa cuntadaada omega 3 maadada la dhaho oo aad jirkeena muhiim uga ah casharkayga intaasuu ku egyahay waa mahadsantihiin waa tahay daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wacyigelinta gabdhaha oo ay iska kaashadeen macallimiinta iyo weliba maamulka Tawakal Medical Clinic waxaa barnaamijkan aad u fududeeyay isla markaana maalgeliyay milkiilayaasha Tawakal Medical Clinic daawadayaal barnaamijkeeni ayaan si anba qaadaynaa waxaa noo xigi doona 10 isna ku saabsan la wajiilanimada ama Soomaalida sida ay u taqaano ruuxa qof la sheekaysta haddana markuu ruux kale u tago si kale ugu sheekeeyo alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waxaan kasoo jeedinaynaa inta laba wajiilinimada oo munaafiqnimo calaamadeeda ah waxaa la dhahay qofka laba wajiile waa qofka iska dhiga wuxuu asaga uusan ahayn tusaale ahaan qofka inuu sheego wax kuna sameeyo waxaas oo sheegay wax kasoo horjeeda waxaa la dhahay laba wajiilinimada waa cudur xun oo chronic disease ah oo ku dhaco qofka bini'aadanka xag moraalkiisa kaas oo u keena dhibaato nafsada qofka bini'aadanka shakhsi ahaan bulsho ahaan iyo wadan ahaan taas oo ah calaamad keento wax aad u xun waxayna saameysaa ummadda inteeda kale qofka laba wajiilaha wuxuu isku maleeyaa qof badbaaday oona arkaynin dadka inuu yahay laakiin waxaa la qof jecel ma leh inuu noqdo qof laba wajiile ah qof muslim ah oo jecel inuu noqdo ma jiro calaamadaha lagu yaqaan qofka laba wajiilaha ah waxa waaye inuu yahay qof aad u cabsanayo inuu yahay qof damaaci ah oo nafsadiisa wax la rabo wax kasta oo sameynayna ku farxad gelinayo nafsadiisa qof aan jecleen inuu runta sheego markastana jecel inuu beenta sheego taasna ay ka muuqanayso xumaantiisa dadka luqad yaqaanka waxay ku macneeyeen inuu yahay qof ku tusinayo wanaag xagga koray laakiin xumaan kugu qaniinayo inuu yahay dadka noqon kara laba wajiilaha waxaa noqon kara dadka politicianka ah dadka business leaderga ah dadka military leaderska ah iyo qofkii awood power oo ku control leh qofka laba wajiilaha ah ma jeclo runta markastana wuxuu sas u yeelayaa wax walba wuxuu la jecel yahay nafsadiisa wax kasta oo wanaagsan qaybaha laba wajiilaha oo kala qaybsan waxaa kamid ah qof wuxuu rumaysan yahay oo surely aan u rumaysnayn 100% aan rumaysnayn taasna waxay keenaysaa wuxuu ku hadlayo iyo wuxuu sameeynaa inay kala duwanaadaan mid labaad qofka inuu raaco shahawaadkiisa nafsadiisa waxay jeceshahay qofka bini'aadanka waxaa lagu abuuray shahawaad taas oo shahawaadkaas oo wax ka xaraam ah marka qofka inuu fiirinin wixii maqalada ma soo waasax oo wixii soo u jeed inay qalad yihiin sameeyo asoo ku raali gelinayo nafsadiisa qofka wuxuu iskaaga ilaalin karaa inuu laba wajiilo noqdo inuu wuxuu aaminsan yahay iyo wuxuu sameynayo oo isku maajgareeyo oo isku mid ka dhigo xagga islaamka laba wajiilnimada way ka hadashay waxay uga hadashay xaafid bin xajar ilaahu naxariista asoo sharaxayo wuxuu dhahay xilliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa aayad soo degtay innal munaafiqiina fi darki al-asfali min an-nar munaafiqiinta dadka labada wajiile oo munaafiqa ay waxay ka galayaan cadaabta meesha ugu hooseyso آيات كل أيضا شيء إن ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون قفك لو وجي لها وحصوابي كرا إنه مسق ماسق سمايو أسوى فعل هذا كهذا يو فعل كأسمينا أي كل دوينهين وحقيانا يندتك وإلهي رميي إلهينا أيضا يكشجع وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون هذي لكل ما عندك إلهي رمي وحدها إلهي أيا رمينا هذي لقاري نقدان ذاتك قال هذا إحنا وحدها أديك إذا نجرنا جستي وكجس جسنا أيك وحال علامة منافق لماذا أو لبوجيل لماذا وعلامة أوجحن وقف يشو تاسنا إسلام كان أقولين رسولك صلى الله عليه وسلم دور جر أيو كهذلي أسو أشرح حياة أمديسة وحنا كتل ما موحفل حن أنا اللي جعلي سنين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحده هاي قف دتك يشو لبوجيلي ودتك أوجحن dadkaasoo kula imaanayaan dad group inay kula hadlaan hadal haddana dad kale u tagay kula hadlaay hadal kale oo totally ka duwan kii hadda ay ku hadlaayeen xadiis kale oo soo gudbiyay
عمرو بن ياسر وحولي رسولك صلى الله عليه وسلم قفكي كله مالنت أدونك لبا وجه كله وحو إيمانا يا مالنت يوم القيامة أسقو له لبا عرب أو نار كسميسن تاسنا وضح أدوحم إلهنا كما قلنا حديث كسوحا وريه البخاري يا داود يا ابن ترمذي waxaana loogu tilmaamay in carabkiisa waxa loogu tilmaamay hadalka oo dadka oo ku khiyaanayo oo rabo inuu ka faa'iideysto taas ayaa loogu tilmaamay mana kargareynayo hadalkaas oo sheegay inuu run yahay iyo in kale just wuxuu kargareynaya wuxuu nafsadiisa interestiga nafsadiisa ku jirto waxa la qofka laba wajiilaha ma lahan dareen oo ku xishoodo wuxuuna sameeynaya wax ka soo horjeedo waxa wanaagsan asoon dareemeynin wax xishood aan dareemeynin taasna wuxuu u sameynayaa inuu waxaas ka baxsado ama ay la tahay wax fudud inuu ku qarciyo ereyo yar dadkaas rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiis kale oo sheegay wuxuu fa idaa lam tastahi fasna' ma shiit hadaadan xishooneynin waxaad rabtid sameey marka la wajiilnimadu waa arin xun waxaana fiican inaan iska ilaalino ilaahina aan ka cabsano wax kasto ilaahina amrana aan sameeyno wax oo ilaahina naga reebana aan ka reebtoonaano mana fiicno hadaad qof mansab leh ama wax sameynay aad tahay inaad dadka istusid ama la waji aad sameysid midda kale qofa xumaan idin ka dhaxaysa ina qofka xumaantii u qarisid oo marka kula joogana wanaag aad tusisid markood ka tagan aad war ka sheegtid taasna waa aad wax u xun waana idinka waanina nafsadeeda iyo andikaba salaamu calaykum soo raadino insha Allah waa tahay daawadayaal wiil waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wacyigelinta gabdhaha oo toddobaad walba aad uga barateen TV-ga Kalsan xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi barnaamijka waxaa maalgeliyay isla markaana fududeeyay casharadan inoo soo diyaariyay Tawakal Medical Clinic waxaan u gudbeynaa casharka inoo xiga oo maanta halkan ay nooga soo jeedin doonto Dr. Maymuna oo kamid ah howlwadeenada Tawakal Medical Clinic waxayna inoo soo jeedin doontaa social phobia oo ah cabsida dadka ku jira markay rabaan inay dadka wax u jeediyaan ama aan dadka soo hor istaagi karin oo isla markaana si toos aan dadku la hadli karin Dr. Maymuna ayaan ku soo dhaweyn lahaa Bismillahirrahmanirrahim maanta darsigan wuxuu ku saabsan yahay social phobia ama social anxiety waa xanuun maskaxeed dadka ku dhaca bini aadanka ah uu ku dhaca social anxiety ama social phobia waxay yeeshaa qofka caadifadiisa emotionka behaviorkiisa iyo dabeecadiisa iyo jirkiisa physical ayaa wuxuu dhintaa qofka bini aadanka hadaan ka hadalo maxaan ku raxaga ma aragta dabeecadiisa iyo caadifadiisa qofka markuu social anxiety ku dhaco maxaa qofka uu dareemayaa wuxuu dareemayaa cabsi badan marka dad meel soo istaagto dad aragto aad baad u baqaysaa waxaad ka baqaysaa xaaladaha qaarkood meel dad jooga hadda timaado aad baad u baqaysaa waxaad ka baqaysaa waxaad dareemaysaa yaxyax iyo ma aragta ceebayn haddaad meelaha qaarkood tagto ama hor istaagto dadka ama u timaado ama wax laga sheegaa baad isleedahay waxa kale oo ka baqaysaa dadka hortiisa inaad ka hadasho waxaad ka baqaysaa in wax laga sheego waxa kale oo ka baqaysaa eye contact wax la dhaho hadda ani idinka wada fiirinaya qaarkan dad xoog u fiiri qaar jeesanaya isha qofka inuu isha ma aragto saas ku fiiri isha qofka eye contact waxa la qofka isha uu ka jeesanaya wad fiirinay xaq uu kaaga jeesanaya qofka ma fiirin karo dadka ma fiirin karo waa baqahay cabsi baa ku jirta iyo dad inuu hadlo oo hadal sheego waa ka baqaya qofkii marka intaas waxay wuxuu dhintay qofka dabeecadiisii iyo ma aragtay maxaa ku raadaha isha behaviorkiisii maxaa kale marka wuxuu dhimay jirkiisii jirka markuu qofkii ku dhaco markuu social anxiety qabo calaamadaha lagu garaan maxay tahay wuxuu leeyahay dhidid fara badan markuu dadku soo hor istaago ama dad u yimaado ama meel cusub u tago waa dhididaya waa gariiraya gacmaha aan ka qaar waa dhididayaan gariir baa ka daadanaya wadnaha garaacaya caloosha si baas noqonaysa caloosha ma laga ahay laakiin sibay u gadoomaysa aadan fahmeynin laba qaarkood qabanaysa dadka waa la boonaya qaar waxa ku dhacaya maxaan ku raahdaa codkii waxa galaya codkana waa ka halaabaya hadalka codka kugu dhegdhegaya ama waa ka halaabaya waxaad yeelanaysaa murqaha dhan baa ku maaragtay xanuunaya marmar qofka shubanaaba qabanaya inuu shumuuba qarka u saaran yahay marmar qofka waxa ku dhacaya maxaan ku raahdaa ii sheeg gacmihiisa qaabo iyo lugihiisa baraf in lagu suubiya uma leenaysaa marka waxa lagu dhahay social phobia way ka duwan tahay xishoodka ama social anxiety-gu qofka xishoodka waa nisful min iimaan wad ogtihiin labid maaha xishoodka qofku ma gariirayo
naftuna ma qabanayso mana kadeed mayo hadduu dad cusub maanta u timaad inaad ka xishooto waa laga yaabaa laakiin in wadnuhu ku garaaco aad rafaadid may xishoodku waa wax ilaahay noo fasaxay oo nagu habboon qofka meel cusub inuu tago inuu yar ka xishoodo marka xishoodka ku qaldina tan waa jiro waxaa la dhahaa marka sababaha keenta maxay tahay sababaha keenta waxaa kamid ah marma xala dhaxal ay gashaan marma xala dhaxal ma gashay dabeecad yaraantii la bartay u badanta waa la isku hayaa marka taas waa dhaxal iyo waa dabeecad yaraantii la qaatay iyo maxaa la dhahaa imbalance isku filasho la'aan ka imaatay maskaxda kiimikada ka mid ah micnihii wixii oo sidii la rabay noqon waayay maskaxda waxyaalo ku jiro oo sinaan waayay waxaa kaloo keentaa la dhahay negative experience qofka yaraantiisa dhibaato uu la kulmay haddii la caayi jiray markuu yaraa haddii la dili jiray bullying lagu subin jiray haddii wax loo diidi jiray haddii lagu qosli jiray haddii dhib badan loo kiyaa maanta hadlatii maxay sheegaysaa oo ma dad baa haddii iban hooyadaa kugu subin karto qof kale intaadan bagaarinin ama ciyaalka asaagaa kugu subin kara laakiin badi hooyooyinka iyo aabayaasha iyo dadka qaraabada guriga jooga ilmaha aad u yasa oo u caaya oo dhib u geysta halkaas cunugu intuu jiray ka qaadahay ilmaha in la amaano waa in la caayo ma aha waxaa la dhahaa waxyaalaha usii daran waxaa waaya la dhahay ishag oo qofka maaragtay ku dhacaya badi ku dhaca dumarka inkastoo ragga fara badanna ay leeyihiin dumarka ugu fara badan waxaa laga yaabaa marmarka qaarkood aabaha iyo hooyada inay sida ahaan jireen oo bad dhaxal waaye ma aha la isku haayo waxaa laga yaabaa environmental waxyaala maaragtay markaad gurigeena ka baxay aad la kulanto inay sababihii ay noqdeen oo maaragtay qofkii waxyaala aad kala kulanta dadkii waxaa kaloo keeni karta adoo la kulmay shaqo cusub meel u doonta tegay iskuulka tegay galaaska kaala cashirka bixi lagu dhahay kaala maanta quraanka jeedi lagu dhahay markaa dareemaysid inaad qabto laakiin inta ka horse ma dareen dadka hortiisa istaag lagu dhahay waxyaalaha waxaa waaye keeni kara social phobia waxba laga yaabaa dadka qaarkood inay qabaan xanuun DD la dhahay DID oo dhahaan aniga hadda inta istaag wajiga sanka ay dheer bishinta balaq iga waxba la iga sheegaa maxaan ku raad wajiga si iga ah waxba tabanaysaa waxun baad sidaa wajiga waxba laga arkaa qofkiina qof caadi ah qofkii lacala wajiga ka gubtay oo kale xaq u leeyahay inuu boqo ma fahamti dadka maxaa la dhahaa hakadka qaba maxaa la shishigowga qofka qaba kaasoo kale uu biqi karaa uu yeelan karaa xanuunkan laakiin adoon qabin inaad yeelato waa dhibaato marka maxyaalaha waxaa la dhahay qofka ay sheeg uu la kulmo daily lifekiisa maanta waad baxday meel waxaad tagtay taleefon laga dirsaa dad badan dhooban yihiin waad ka cabsatay waad geeristay ma geli kartid waxaad tagtay maxaan ku rahdaa alaabo store inaad ka soo qaado qofkii ma awoodayo uu gariirahay uu baqaya storega dadku soo fiirinayo waad ka baqday indhahooda ka cabsanaysaa waxaa kaloo jira maarag dad kale inaad la kulanto waxaa laga yaabaa isha saa idin sheegaa inaad markii lagu soo fiiriyo xagga u jeesato asaas tiraahdo maanta dhan waxaa kaloo laga yaabaa intiinaanoo buuxda inaan soo hor istaagan ama qol soo galo dad ka buuxo uu qofkii ku dhaco xanuunkii uu gariir ku dhaco cunno inaad ka soo gadato restaurant ama hotel inaad ka cabsato asriya haddaad gasto dadka may ku jiraan dadku maxay kaa sheegayaan dadku maxay ku dhihi doonaan in inaag markaan waa loo siman yahay ana waxaan aqaanaa gabar intay hotel iyadoo gaajaysan dhowr goor seexatay oo shaqaysa hotelka markaan galo waa baqayaabay tii waxaa dadka dhan ku jeeda anoo gaajaysanaa seexanaya macnihiisa way xanuunsantaa laakiin iyadii ma dareemayso habeenkii gaajaan ku baryaabay tii intaan wax ka soo qaadan lahaa meeshaas waan baqayaa ma geli karto waxaa laga yaabaa mararka qaarkood ii sheeg qofkaan in lagu baro aad gariirtid adiga gabadhan hebel la dhahaa maanta ama wiilkan hebel la dhahaa adigana hoos dhidid aad kaa daato wadnuhu ku gariiro waxaa laga yaabaa marka qaar dadku iswaa sheekaysanaysaa sheekada inaad awoodi weydo marka intaasoo dhibaa markay jirto maxaa qofkii ku dambeynaya aakhirka hadduu xanuunkan qabo dadka badan baa jira markii presentation la dhaho ama galas ka hadla ama duruus bixi la dhaho qofkii dhibaato badan buu la kulmaya ama soo istaagi karo dadkana mar qaar waaba la baraabo marka la caladka madaxweynayaasha ama dadka speakerska inay tababar qaataan laakiin yaraantii haddii qofka laga gooyo waxyaalo badan maba kusoo baxaysa maxaa dhib oo ku imaan kara aakhirka qofkii hadduu social anxiety qabaa disorder waxaa ku imaan kara daciif inuu soo arko maxaa ka hadlaysaa adigu hebla ahayd ama hebela ahayd ma awal baad qiimo lahayd waxba dadka hortiisa ka hadlin waxba ha yeelin iska dhaaf inuu isu arka maaragta waxaan waxba ahayn waxba sheegan karinin maanta haddaan dhib qabto waa inay dhibaato aan haysato inaan dadku usoo bandhigan karin aabaha inaan dhibta u sheegi karin walaasha inaan u sheegi karin ninka naagtiisa hadduu dhib ku qabo inuu dhibta u sheegan karin naagtooda ninka dhib ku qabta inaysan u sheegan karinin inaad wax kasta qarsatid oo aadan sheegan karin waxaa laga yaabaa dulqaad darri fara badan inaad yeelato haddii wax lagaa sheego inaad dagaalanto qofka bini aadanka ah waxbaa laga sheegi karaa nafley baa tahay madaxweyneaad noqon kartaa macallin darsi bixiyaad noqon kartaa hadda aan darsi dhigsiina gabadha hadday qosasho waa qaracmaya waxay u qoslaysay aniga maaragta cabsi qaba baqaya cabsi baa anay ugu jirta wallahi anay haysatay way qosashay hiblaa qosashay ama ilkahay way dhool cadaysay cabsi baa gelaysa qofka inaad madaxweyne tahay laga yaabaa wax lagaa sheego
od gariifto tira maxaa wax la iiga sheegay laga sheegaya inaad waxa tahay laga yaabaa nin ma qof maartay jagahaya waxba laga sheegay marka qofkii markuu dhibsado wixii kaasado micnaa xanuunkii buu qabaa dulqaadkii ka maqan dulqaad inaad yeelato haddaan dulqaad aadan lahayn micnaa social phobia qabtaan social anxiety hadda qofka maxaa ku dhacay iskuulkii inuu ku xumaado waxbarashadii gabar waxay tiri haddaan galaaska macalinka darsiga bixiro soo istaajay waa carra albaabkan ka baxaa markaa meesha istaagan hal mar orod kaga baxaa tiri albaabka sababtoo ma awoodo inay suubiso laakiin macalinku ma fahmaayo waxbarashada inay ka xumaato qofkaas gabar iyo wiil wuxuu noqdo haddii wiil uu noqdo horta hore ay khatar ku jiraan inuu uusan saaxiib suubsan inuu cidla istaaga kaligiis relation kale inuu ka dhumo isolation kaligiis hebel go'aan u socday dhahan Soomaalidu oo qof xanuunsan go'aan u socdo qof ilaahay adduunka ma keeninin waxa ku dhacay markii qofka inuu u fududaato inuu daroogada cabo gaar ahaan wiilash inuu ku fududaato darooga inuu cabo suu ma aragta naftiisa farxada duu saaxiib yeelan qof arday lahayn waxba dad kasta uu ka baqayo wuxuu ku raaxaysanayo raadinaya marka qarka wuxuu saaray inuu darooga cabo marka maxaa la rabaa xanuunkan social phobia ama anxiety hadaa isku aragto daawona waa leeyahay tababarna waa leeyahay qofku waxa la barayaa waxyaalahan wadna garaacaan dhibtaan haysata cabsidaan sidoo ugu hortagi lahaa marka maxaad ugu hortagaysaa dadka hadda waxaan dhahnaa markay ciyaalka iskuulka noo yimaadaan muraayada buug qaado muraayada tag la istaag muraayada ku hor arka isfiiri bal horta waxa taa adi waxay kamid siyaalaha la isaga daaweeyo muraayada istaagaysaa waad hadlaysaa waxa arkaysaa waxa rabtaa sheegaysaa hadaa dhowr maalmood ku celcelisid inaad bini aadan tahay oo caadi oo caafimaad qaba markaas ogaatid waxa dhan waa ka baahay daawo la qaatana way jirtaa waxyaalo kale qofka loo sheego tababar la siiyana way jirtaa oo la siiyo darsiga intaas ku dhan yahay wasalaam daawadayaal intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka wacyigelinta gabdhaha oo toddobaad walba aad uga barateen TV-ga Kalsan xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi barnaamijku waxa idin daadihinaysa anigoo Intisaar Saalax Xuseen ah dhanka kaamirada iyo waliba farsamada waxa gacan iga siiyay Siciid Sheekay intaan barnaamijka mid lamid ku kulmi doono toddobaadka soo socda hadii Allah awood ilahay u ogolaado waxaan idin kaga tagayaa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh